السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مقعي وعبد الله مهد عبد الله هنا زقاي oo idin sharxi doono qaab nooce remove loogu dhigaa gmail-kaaga qaabka remove loogu dhahaa telefonkaaga mar walba telephone Samsung hadii aad haysato ama telephone nooc kale ah haysato gmail kugu xiran yahay intaan restore u dirin ama reset factory intaad u dirin koor adoo maasan gmail-ka remove ka dhig kadibna hadhowta si qaab automatic ah kugu soo kacaya qaab nooce gmail-ka remove ugu dhaha Samsung-kayga ama telefonkaaga kale aad haysato ku qaaska okay ila socod waxaa soo gashaa qaybta setting-ka aadina aniga setting-kay waa kana ama baalka soo dejiya directed waa ka setting-ka kadib waxaad galaysaa meesha ay ku qoran tahay cloud and accounts meesha ku qoran tahay ku dhufo kadib waxaad ka sii galaysaa accounts ayaa ka sii galaysaa kadib waxaad ka sii galaysaa Google kadibna gmail-ka rabta inaad remove ka dhahdo ayaa dooranaysaa midka hoosan dooranaa waxaan dooranayaa calaamadaas options-ka saddexda dhibic kadibna remove account kadibna waxa ku dhahaa xogta gmail-kan oo dhan waa laga remove garay doona laga titiri doona xogta ma baxaysa laakiin asii gmail-ku wixii ku jira baxayaan oo ka dhiganta waxaan gmail-ka remove dhaaday bokusyadii ku furnayna asay raacayaan ee ka dhiganta hadhowta daafurtina sidiisoo kugu shaqeeya ma remove titiritaanki maan ee kaliya waxa message contact wixii oo dhan kugu jiray in oo gmail-kaas ay ka raacaan waa hadii oo gmail-ka wax walba kugu save gareysan yahay remove ande kadib waxaad arki doontaa gmail-ka inuu si toos u baxay laakiin fiila gaar ah waa inuu ku shiidan yahay qadka internet la'aantiis waxba ma qaban karsid waa ka baxay afar ay ahaayeen waxa ku soo harsay saddex waana ku maasantaa la socodkaaga la jaanqaadkaaga magaciina waa injineer Abdullah Mahdi Abdullah Hanasika like share comment وحقنا سيدا يو أمانة لا اسمه